ujeedadeena koowaad ayaan rabnaa inaan ka jawaabno objectivekii koowaad wuxuu ahaa inaan ogaano biyaha aan hadda haysano maxay tahay biyaha hadda aan haysano sidaan idin sheegay waxaanu isticmaalnay gauge stationka ku yaala magaalada Buulabarde maadaama softwareka hydrologicalka aan u baahannahay in la isticmaalo hal gauge station labada gauge station oo Beledweyne iyo Buulabarde ma isticmaali karno laakiin waxaa la isticmaali karaa keebaa representative ka noqon kara Webiga Shabeelle waxaa representative ka noqon kara stationka Buulabarde maadaama markii Buulabarde la joogo istiriimyada Soomaaliya contributionka ay ku sameeyso Webiga Shabeelle dhammaantood waxay kaga soo darsamaan deegaanka Ceelgaab inta burulada ka koreysa magaalada Buulabarde Webiga Buulabarde markuu mariyo waa meesha ugu biyaha badan ee Webiga Shabeelle sidaas daraadeed catchmentiga Webiga Shabeelle ee Buulabarde waxay representative ka noqon kartaa dhammaan catchmentiga Webiga Shabeelle maadaama markuu Buulabarde soo dhaafo webigu uu yahay webi ama si yaraaniya ama mataqaana ayisha si dhubnaaniya oo naaro noqonaya oo si yaraaniyo ilaa uu sablaale markuu soo gaaro habay webigu qalanayaba sidaas daraadeed marka finding aan helnay biyaha hadda available ka aan haysano daatadii aan isticmaalay from 2003 ilaa 2014 average kada aan qaatay webiga wuxuu soo saaray gauge stationka Webiga Shabeelle ee Buulabarde inuu biyo available yihiin 2,900,000 oo ah 2.9 billion cubic meter waa average data aan isticmaalay 2003 ilaa 2014 haddaad graafka fiirisaan 2003 ilaa 2014 waa graafkii biyihii available-ka ahaa hal sano webiga representative kama noqon karto biyaha available-ka for example 2014 oo ugu dambeeyay haddaan idhaahdo 2014 webiga soo raacdid waa wax ku dhow 3.2 billion ma dhihi karno Webiga Shabeelle waxaa available ah 3.2 billion laakiin maadaama sanaduhu sanadna yar sanadna badan yahay average-ka sanadahaas oo dhan ayaa biyaha ka turjumi kara biyaha available-ka ee webiga sidaas daraadeed haddaa sanadada fiirisid oo kale sanadka 2006 waa sanadkii ugu biyaha badnaa ee Webiga Shabeelle wuxuu gaaray 4.4 billion cubic meter ayuu gaaray sanadkii 2006 sidaas daraadeed 2006 yaa xasuusta wixii Soomaaliya ka dhacay waa fatahaadii ugu badneed ee 10 sano ugu dambeeyay Soomaaliya ka dhacday waa markii Webiga Shabeelle uu ku fatahay Webiga Juba uu ku fatahay jiray badweynta Hindiya oo dhan ay noqon jirtay guud ay noqon jirtay dadkii ka qaxay deegaanadaas hadda xasuustaan hay'adda WFP helicopter ay ku geen jirtay raashinka oo maanta lagu siin jiray maadaama koonfurta Soomaaliya dhan ay noqotay fatahaad ay wada noqotay sidaas daraadeed recordka uu sameeyay macnaha software ku analyze gareyn wuxuu noo sheegay 2006 inay tahay sanadkii ugu biyaha badnaa ee 10 sano ee Webiga Shabeelle sanadii ugu biyaha badnaa hadda fiirsid 2009 2003 2004 waa xilliyadii markaas roob la'aanta ka jirtay Soomaaliya iyo geeska Afrika oo dhan macala Ethiopia biyahan annaga aan haysano maaha biyo ka dhaca Soomaaliya waa biyo boqolkiiba 90 ka yimaada dhulka Ethiopia ka dhaca Soomaaliya waxaa la yiraahdaa wax ka yar boqolkiiba 10 ay contribution ka geystaan markuu roobka da'o laakiin biyahan waa roobka ka dhaca ee buuraleyda Ethiopia ka dhaca maadaama webiga source-kiisu ka yimaado Ethiopia haddaan fiirino marka average monthly oo biyo socdo average aan qaadanay biyo socdo from 2003 ilaa 2014 average-ka biyo socdo biyaha January iyo February aad u jeedaan waa socodka webigu aad ayuu yar yahay because waa xilliyada mataqaanaa geeska Afrika oo dhan roobku ku yar yahay laakiin bisha May iyo bilaha October biyaha aad u badan yihiin webiga maxaa sababay waa xilliyada roobka noo da'o waa labada season oo Soomaaliya roob ka da'o waa gugi iyo dayrtii laakiin bilaha jilaalka iyo diraacda oo January February March iyo December iyo for example July oo kale webigu aad buu yar yahay sidaas daraadeed markii water resource plan la sameeyo muhiimadda ay leedahay in daraasad la sameeyo waxa weeye haddaan rabno inaan qorshe sameeyno webiga labadan bilahan waxa halka ka soo baxay inay dhici doonaan crop failures dadkii beeraleydii ama dadkii wax beeran jiray inuu biyo ku yaraan doono ama beerihii ay ka yaraanayaan biyo u banaayeen biyo ka yaraanaya beerihii sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay in alternative loo sameeyo dadka beeraleyda ah meelaha ay kaga qabtiri karaan baahida biyo kale ay u baahan yihiin in bilaha la qabtiro sidoo kale bilaha May iyo bilaha October oo ah bilaha xilliyada rain season-ka oo u baahan in macnaha la garanayo in fatahaad imaanayso ama fatahaad dhacdaba ama markaas ay dhacdo bilaha gugi bilaha dayrto October iyo in qorshe loo dejiyo in la sameeyo water resource plan waxyaabaha firaarka loogu horeemaanayo muhiimadda ay leedahay macnaha daraaso waa midaas saas u jeedaan macnaha average monthly socodka biyo waa sidaas
xilliyada roobku dooguga dayrtu waa macnaha xilliyada noogu biyaha badan xilliyada jiilaalka January February waa xilliyada noogu biyaha waxyaabaha aanu tala bixinta ka sameynay ayaa ah wabiga Shabeelle waxaan ognahay in macluumaad badan aan laga sameyn ama daraasad badan aan laga sameyn wixii ka dambeeyay 20kii sano dambe waxaan markaa ku rumadageynay in research badan laga sameeyo ama daraasad xoogan laga sameeyo ama investment la geliyo waxyaabaha cilmi baarista wabiga Shabeelle si future-ka loo ogaado mustaqbalka wabiga biyaha Soomaaliya ay haysan doonto iyo biyaha ay u baahan doonto mustaqbalka sidoo kale maadaama wabigu biyihiisu aad u yar yihiin waxa ma laga maarmaan ah waxyaabaha ku soo celceliyay ee adaptation-ka oo u baahan teknolojiyada mataqaana beeraha u baahan adaptation-ka in teknolojiyadaas wabiga lagu apply gareeyo sidoo kale maadaama anagu aan nahay wadan mataqaana faqri ah IDPs-ka aad u bateen dadkii mataqaana faqrada Soomaaliya aad u bateen wax soo saarku aad u yaraaday waxa laga maarmaan ah mashaariicii hore ee wabigi sida mataqaana warshadii sokorta Jowhar warshadii dharka Balcad mashaariicdaas in la soo nooleeyo si ummadda Soomaaliyeed mataqaana dhaqaalahooda iyo kaabayaashooda isku kabaan sidoo kale biyaha dhulka hoostiisa ku jira ama la yiraahdo groundwater potential anaga ma naqaan ma garanayna haddana dawladda Soomaaliya waxyaabaha biyaha aanu haysano ee groundwater-ka available ka nooca ama socodkiisa ama meesha ka yimaadaan information badan Soomaaliya kama hayso marka waxay u baahan tahay in la ogaado investigation lagu sameeyo waxyaabaha aanu haysano ee groundwater-ka sida walaalkay Xasan oo kale uu mataqaana aad u encourage gareeyay Xasan in la maareeyo biyaha mataqaana ay u baahan tahay water resource management waxyaabaha lagu manage gareyn kara biyaha sidii sheegay waxaan biyo waa khayraadka wadanku uu leeyahay dawlad cid aan ahayn ma manage gareyn karto dawlad ayaa loo baahan yahay dawlad markii laga hadlayo institution-ku wabigu kale waa inuu yeeshaa institution sax ah sida Xasan lagu gareeyay laakiin waynu lahaan jirnay wabiga Shabeelle wuxuu lahaan jiray institution la yiraahdo River Shabeelle Authority ayuu lahaa wuxuu siman jiray wasaaradda beeraha departmentiga irrigation-ka ayuu siman jiray bariga dawladda department institution-kaas wuxuu qaabilsanaa wabiga hadii tahay dabagalka in lagu sameeyo waxyaabaha monitoring-ga fatahaadiisa inuu yiraahdo cabirka wabiga socodka wabiga sidoo kale beeraha biyo isticmaalaan maareentooda beeraha iyo water allocation-ka dhammaan wabiga la isticmaalo dhaba waxa sameyn jiray institution-kaas River Shabeelle Basin Authority la oran jiray waa wuxuu ahaa institution maareynta wabiga ka qabilsan wabiga Juba wuu lahaa oo Juba Basin Authority markii hore jiray kadibna wasaarad baa loo sameeyay wabiga Juba oo master plan-kii mashaariicdii faanoole iyo mataqaana mashruuci baadhin hadir baawda oo mashruuca faanoole oran jiray mataqaana wasaaraddaas ayaa qaabilsanay marka institution way lahaan jirtay dawladdii oo macnaha loogu talagalay in wabiga lagu maareeyo oo River Shabeelle Basin Authority laakiin maadaama wixii ay baabeen waa sax maadaama aan nahay hadda scratch aan nahay oo aan dhulka naalno wixii aanu lahaan jirnay ayaanu rehabilitation ku sameyn karnaa because annaga ma nihi dad zira oo haddii kool raba inay wax diyaariyaan waxaan nahay dad dawlad ahaan jiray dad awood badnaa dad mataqaanaa khayraadkooda maamuli jiray habkii aynu u soo marin jirnay ayaanu rehabilitation ku sameyn karnaa oo aanu dib u noqon karnaa wadadii mataqaanaa raadkaan ka nimaad dib ugu noqon karnaa marka institutionada in dib loo celiyo waa habka kaliya oo biyaha lagu maareyn karo